سلطانka guud ee gobolka Hawd Sultan Umar Sultan Maxamed Farax ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay ka noqoto go'aamo ay toddobaadkan ka soo saartay shaqo qasalka ku haysta dhulku yaala deegaanka Baladiiriye ee gobolka Togdheer taasoo u dhaxaysay laba beelood. Xukuumaduhu waxay haybad ku yeeshaan oo ay sharaf iyo qiimo iyo karaamaba ku yeeshaan markay tixgeliyaan qoraalada xukuumadaha ka horeeyay ay sameeyaan. Xukuumadii ka horeeyay xukuumadda imika meesha joogta halka dhowr goor oo wax ka dhaceen waa lagu wada hadlay qoraal laga soo saaray deegaanimadeeda sharci ah qoraalada laga soo saaray magac dawladeedna way ku socdeen haybadii dawladnimada way wateen maadaama dawladda soo saartay oo xukuumadda soo saartay mas'uuliyiintan imika kursiga ku fadhida qoraalada ay iyagu sameeyeen kuma fadhiyaan waxay ku fadhiyaan qoraalada dawladaha hoose sameeyeen ama dawladaha ka horeeyay iyagu ay sameeyeen hadday dhacday inay tixgelin waayeen qoraalada hore waxay u muuqanaysaa in iyaguna si faxaaraan ku fadhiyaan meesha marka dal eego urfiga caalamka arintaasi waa arin aad iyo aad runtii u foolxun dhacdada meesha laga sameeyay waa dhacdo aad u foolxun mana hadda in mar walba dhacdo la yiraahdo arintii dawladdu way qaldantay dabeetana dib looga noqdo marka dambe marka hore fiican in waxan laga fiirsado biyaha iyadoo laga hadlayo biyaha magaalada Hargeysa oo si toosan loogu yiri mas'uuliyiinta xukuumadda ka tirsan master planka wakaaladda biyaha Hargeysa Axmed Dhagax nooguma jirto kacdoon badal la doonayay laakiin uma aanan jeedin anagu waxaan u aragnaa waxa soo dhan inay sabab u ahaayeen wala lahaa un malaha reerkan oo aad mooday inuu ku yaraado adagii Soomaaliland hal la bislayo si uu Soomaaliland uga noqdo mara suurta galaysa inaanu ka noqono laakiin ninka doonayay inuu isagu ka noqdo isaga banaanka iman doona waxaan mar labaad soo jeedinayaa in arintaasi laga noqdo dadka deegaankooda faraha looga qaado ciidamada meesha la geeyay laga kaxeeyo laga saaro arinta waan ka adkaynayaa dadka deegaanka kula noole dadka la walaala ah ee marka hore dhexdhexaadinayna aad baan ugu mahadnaqayaa iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa inta imaka nabadgelyo ahaan ku shiraysa burcana waxaan leeyahay wanaaga ka shaqeeya adkaynta nabadgelyada ka shaqeeya nolosha dadkiina ka shaqeeya adkaynta iyo midnimadiina ka shaqeeya ibn wasiir ayaa toddobaadkan u baxay deegaankaasi si ay xal uga gaadhaan shaqaqada iyadoo dhinac ka mid ah beelihii muranka u dhaxeeyay ay ku gacan seedeen go'aamadaasi Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.